waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday doonay tadabar laxaadkay dabciyo laafyihii gacanta lubidaydu leyl xalay maledin laadadiiya taahe waa taalan leemada indhaha araggu liitaaye liiqliiqad baanahay sidii lula dabayleed aanso gabowga iyo dhibaatooyinkiisa la xidhiirta oo uu tiriyey gabayaa ay raaga ogaas isku gada ahaayeen asi ay kala degmo ahaayeen waa aadan maxamed cabdille oo loo yiqiin aadan guray wuxuu ahaa hal abuur soomaaliyeed oo ka mid ahaa hal abuuradii qarnigii 19aad maansooyinkooda lagu haasaawi jiray ama halqabsiga laga dhigan jiray tixda uu mariyaa waxay haddiiba saaban jirtay golayaashii laysugu iman jiray ee reer miyigu ku kala warqaadan jiray haddii gabay iyo geeraar la yidhaahdo wuxuu ahaa nin ka sheegan dhulkii ximan loo aqoon jiray haatasan galguduud loo bixiyey waxaa la wariyey raaga ogaas kolkuu maqlay tixihii aadan guray tii ugu horraysay middood inuu aad ugu bogay oo uu la yaabay waxa uu hadda ka hor ninka sidaa u gabyaya la maqli waayey inkastoo aan dhab ahaan loo hubin waxaa lagu wadaa baadhis dabadeed inuu dhashay hilaada 1840 kuna dhashay bariga ceelka Dhuusamareebeed hala yaabin marka aan leenahay ceelka Dhuusamareebeed maxaa yeelay sidaabaa loo yiqiin kolkii aadan guray noolaa intaan magaalo laga dhigin soddomaadkii qarnigan ka hor wuxuu ahaa nin dagaalyahan ah oo aftahamada geesinimo ku darsaday labadaa tilmaamood ee uu isku darsadayna waa labada dadkii aqoon jiray ay ku jeclaayeen kuwa sheekadiisa qabaana ay ku tixgeliyeen xilliga aadan iyo raggii la da'da ahaa ay noolaayeen ma ahayn xilli qof waliba caan bixi karay wuxuu ahaa xilli dhibaato iyo shiddo badan xilli aan hurdo macaan la seexan oo lagu wada noolaa cabsi joogto ah ragguna rikaabku joog wada ahaa nin adag mooyaane ma ahayn xilli dadku nolosha u wada sinaa wuxuu ahaa xilli xoolaha si ba'an loo kala qaadi jiray oo ninkii xoog iyo ciidan badani uu xaq iyo gar u lahaa wuxuu ahaa xilli geelu habeenba xero ku hoyan jiray ninka uu markaa u xeraysan yahayna uusan hubi jirin inuu habeen dambe u xeraysnaan doono iyo in kale waxaa lagu dhaqmi jiray xeer aan qornayn oo in yar loo hoggaansami jiray inta badanna lagu gacan sayri jiray wuxuu ahaa xilli gardarrada xalaal laga dhigtay oo dad aan yarayni ay maanla'aan u go'een ama ku xoolo iyo xilabeeleen waa xilligii uu ninka Soomaaliyeed ee dagaalyahanka ah intuu faanay ku yiri dayax 15 ah ama ku waday ama ka waday taasoo laqabaheedu yahay wallay habeenka caddadu 15 ka tahay oo dayaxu iftiinkiisa ku simo dhulka ee babalaashay wallay habeenka ama culma hiigaan ah reer degan oo nabad ah ku waday ama anigoo soo dhacay oo xoolahoodii soo mooro duugay soo laabad ahaa ninkaasi wuxuu ka mid ahaa kumanyaal rag ah oo dhaca dadka meherad ka dhigtay xilligii aadan guray noolaa wuxuu ahaa xilli duulaanka loo sinaa oo yar iyo weyn dhicidda geela loo wada heelana middaa iyada ah uma hayo tusaale ka habboon dagaalyahan la oran jiray dhaga jarco oo ay aadan isku waqti ahaayeen ha yeeshee ka weynaa dhaga jarco wuxuu duulaan wadayo wuxuu col saaraba kolkii uu gaboobay ayuu maalin maalmaha ka mid ah arkay niman dhallinyaro ah oo col humaya markaas bay la noqon weyday inkastoo uu ka celaayahay da'awgeed inuu colka ah gadaal uga haro tix ay meelisadaani ku jireen ayuu tiriyey isagoo leh bari dhowr ma xaalayn jirinee haatan aan baqaye kamana baaqan karo guluf u baxay nimanka buuroode kubka iyo bawdadii bay jilcaye bulayga ii saara nin uu ninkaasi dhalay oo ilaa la oran jirayna waxaa laga hayaa inuu gabay ku yidhi reerkayga waa uga dartaa daanya nabadeede dar allaan ku noolaan jiray iyo duul la weeraro oo dugdugtaydu waa laba habaaskobay ka duushaay dabuubta oo kooban wuxuu xilligaas u ahaa xilli ninkii keliyo iyo ooga adag lihi magac yeelan jiray kii aan lahaynna boorka looga tegi jiray ama xoolaha nugulka ah iyo aqallada lagu dhaafi jiray
moodaa inaan yaraha ku dheeraaday tilmaanta xilligaa ha yeeshee waxaan qabaa inuu hordhig caynkaasi laba marmaan u ahaa mar haddaynu rabno inaynu dhab ahaan u garanno ninka aanu waayihiisa wax ka sheegayno maxaa yeelay waxaa run ah intaadan qofka darsin inay laga maarmaan tahay inaad horta beeshii uu ku dhex noolaa aad in door ah ka ogaato aadan gurey wuxuu ahaa nin xilligaa baan ku noolaa oo sida dadkii kaleba weerar iyo duulaan aan demin u taagnaa wuxuu sidaas ahaadaba waagii dambe ayuu gabow la fadhiistay ileen xoogga iyo dhallinyaronimadu waa barwaaqo dadka intii wakhti ah loogu deeqo ee aan lagu waarin waxaad nin door ahaato oo aad hawl kasta oo timaadda u horraysaba mar baad soo dhacdaa socod tahli weydaa oo aad hadal maahae haayad kale hayn weydaa ugu dambaystana hadalkaba gabtaa inkastoo nafta la jecel yahay waa mararka ay suurowdo inuu qofku noloshaba geerida ka doorbido ama ay dadkiisu ilka la jeclaadaan kolka uu iskii wax u qabsan waayo cid kalena callaal ku noqdo gabayaagii carbeed ee labiid la odhan jiray waa kii lahaa walaqad sa'imtu min alxayaati wa tuuliha wa su'aali haada annaasi kayfa labiidu oo macnaheedu yahay nabee inaan nacay nolosha oo nacay dherarkeeda oo nacay booqashada dadka iyo weedhooda aan duxda lahayn ee ah tolow labiid siduu yahay mid kale oo isaguna caan ahaa zuhayr ibni abi salma oo cimriyeyna waa kii lahaa sa'imtu takaaliifa alxayaati waman yacish 80 xawlan laa aban laka yas'ami oo macnaheedu yahay nacayoo ka quustay noloshii howlaheeda heedda hagardaamadeeda oo gacalkaa waaye nin 80 tirsaday sidee buusan u nicin bulsho waxay ku dhex gaboobeen muruqa iyo waxtarka oogada la isku tixgelin jiraye aan u fududaan qof da'oobay oo in wax la taarta mooye aan wax kale soo kordhinayn qofkii da'ooba gabayaa aad loo yaqaanba ha ahaadee wuxuu daryeel ka jeeqaaqi jiray warase uu dhalay oo inta badan xilliyada adagi barbaari u ahaanshaha waalidka ilowsiiyaan mana jirin hay-ado dawladeed oo sida maanta dunida ka jirta u xilqaba xanaanada aabbayaasha iyo hooyooyinka uu gabowgu jilbaha u dhigay aadan gurey kolkii uu gaboobay ee uu 80 kor u dhaafay ayuu xoog yareeyey oo aad iyo aad u jilcay intaa waxaa ugu darmay xoolola'aan iyo dadkii ay wada degi jireen oo ka wada guuray wuxuu arkay siduu nindoor u ahaa dadkii uu ka jeestay oo uu wax tabantaaba u geysta ka waayey dumarkii uu qabayna waxay taraan daaye qaylo iyo haaraan bay ku asqaysiiyeen wixii uu ka filayey oo turrinsho ahaana kama wehelin gabow cayr wehel la'aan iyo dandarro oo idil baa mar qura ku kulmay sidaa u dambaysay markuu arkayna aadan ma aamusina wuxuu yeelay wixii laga filayey nin Soomaaliyeed oo sidiisa oo kale maanta ruug ah gabay dheer oo aanan halkan ku wada xusi doonin ayuu mariyey waxaa ka mid ahaa 17 miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarrada ceel marshay oo timaha deebeeyey tin madow miyaan laga dayayn aniga tuurkayga ma tallaabadaan la qarqaroo tiigsin luga mooday ma tukubay sidii habartu kale tuugma ugu jeeda bawdada miyaan tuujiyey iyo adhaxda tiirkeeda intaas kolkuu da'diisa iyo sida jirkiisu u dabcay ka yeedhi ama uu u tilmaamay astaamaha gabowgu sida ay xubin kasta uga saameeyeen ayuu u soo dhacay saboolnimada u dambaysay waxa ay dhaxal siisay iyo weydnimada ay u soo jiiday tafmadow haddaan qaadan jiray mara tilmaan dheer leh tartarrada miyaan qayd ku xidhay taaka labadeeda barkin luqunta kuma tiirso iyo tolona baarkiise ma dhegtaan tagoogada gashaday sidii anoo tuuga wax martiduu tamadisaa ninkay toos u hooyataaye tulugiis miyaan laygu arag tuludi waa geele naaguhu ninkaan tuujinayn waa timlahayaane taf miyaanan rogahayn sidii cudurku ii taabay markaabuu xusuus isugu dhaqaaqay iyo inuu tilmaamo berigii aadan ahaa sidii ay arrimuhu ahaayeen berigii dhallinyaronimada iyo taawada colaadeed ay ku dhammaayeen berigii uu ahaa ammaanduulaha tilmaaman ee talo iyo tabarba u lahaan jiray markaa buu yidhi turug maalintaan fuuli jiray tahartu weynaatay
col tirtirihii anigaa lahaa tabaya duulaane guuraha ana istaagi jiray idil tilmaanteede haddaan weerarkeedii tognay oo toon ka soo didinay iba toosan leeyay haddayna hortaslaynaysay togbiyale haddaan keennay oo koran ku taysiinay sidaan wax u tabayn jiray miyaan taabi kari waaye allahayow tahliishii jannaan adiga kaa tuugay waayo maguu calaacal dhallinyaranimo soo celin maguuse xoog iyo xoolo soo naqi inaan calaacal waxba tarayn aadan isba waa ogaaye naftuu ku maaweelinaayey waana danta gabayga calaacalka ah aadkiisaba loo tiriyaa dhegaystayaal gabowgu waa marxaladaha nolosha middood ruux kasta oo geeri degdeg ah ka nabadgalaa waa marxalad uu filanayo oo uu inuu gaaro loogu duceeyo inuu gudbana looga duceeyo waa marxalad laga sii walwalo markii lagu sugan yahayna dhammaadkeeda laga argagaxo marxaladda xigta oo aan la jeclayn weeye waxaa argagaxa duqa ama duqda ku abuuraya waa marxaladda geerida nasashada dheer ee lagu tilmaami karo wuxuuna siina jacayl qabo midda uu aadanuhu ugu nacab yahay dadka niyadda wanaagsani waxay gabowga ku magacaabaan marxaladdii fakarka marxaladdii dib isu xisaabinta marxaladdii waxgarashada bisil kuwa sida kale wax u eegaana waxay ku sheegaan marxaladdii itaaldarrada marxaladdii shaqogabnimada marxaladdii fadhiga daalka leh marxaladdii geeridu ku xigtay iyo magacyo kale oo muujinaya waxay dadku ka qabaan marxaladdaas iyada ah ee in la gaaro iyo inaan la gaarinba mar la wada jecel yahay magac kastaba ha la siiye gabowgu waa marxalad ka duwan marxaladaha nolosha ee uu qofku soo maro wuxuu waxyeello gaarsiiyaa dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee xubnaha jirka iyo shaqooyinka maskaxda ee ay xusuusta iyo wax kala soocu ugu wen yihiin waxaa qofka gabooba hareerihiisa ku bata dhallinyaro uu afgaran waayo waxaana ku yaraada da'da uu ku abtirsado ee ay fiicnaan lahayd inay gabaad isu noqdaan waxyaalaha oo lagu daray dhibaatooyin uu qofkii qabaa ogaan karo ayaa daraaddood gabowga loo necab yahay oo looga walwalaa gabowgu waa marxalad markii la gaaro had iyo goor laga cawdo oo qof kasta rag iyo dumar labadaba u daran siiba waayadii hore ee daawada iyo daryeelka caafimaad aan sida maanta loo heli jirin ruuxii coobir noqdaana uu ku raagi jiray waab uu geediga aakhiro ku sugo dalkeenna baryo sii horreeyey ilaa maantadan la joogo qofkii 60 kor u dhaafa waxaa loo qaadan jiray mid caleentiisii cirka ka soo laalaado oo berri ama saa dambe mid ahaan axankiisa la cuni doono khaatumada allow kuu suubi ayay ahaan jirtay ducada loo akhriyaa kolkii la soo booqdo inkastoo aan aadanuhu nafta ka samrin ilaa ay ka dhacdo haddana jirro iyo gabow qofkii ay isugu darmaani wuxuu isu qaataa inuu reer aakhiraad yahay qofkaas isaga ahi hadduu bacaska iyo qiyaamaha rumaysan yahay wuxuu weheshadaa tusbaxa iyo weesada wuxuuna badiyaa waanada iyo ka sheekaynta hebeladii iyo waayadii uu soo maray waayadaa iyo hebeladaa oo uu inta badan u arko inay ka fiican yihiin waayada uu markaa ku sugan yahay iyo hebelada agagaarkiisa ka muuqda rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi ayaa ugu badan maahmaahaha uu wariyo sidaa kolka uu leeyahayna isuma haysto innaba ha la ekaatee inuu ku dambaabayo maxaa yeelay raggaas hore iyo hadalkiisuba waxay u matalayaan cadcadtii dhallinyaranimo kaftankii maanla'aaneed xudxudadii dumarka iyo udhagraaricintii macaansiga lahayd ee codkooda miyirka qaadka leh waxa la yidhi doqonnimo uusan u dhalan ayuu gabowgu qofka u keenaa nin soomaaliyeed oo aad u cimriyey baa laga sheegay inuu yidhi ileen ilaahuw cimrigayga dheeree intaan lahaa doqonnimo unbaan u alla baryaayey rag badan oo waran iyo weerba lagaga dambayn jiray ayuu gabowgu soo riday oo carruurnimo u celiyey dabadeedna dhallinyaro xilkas ah iyo kuwo aan xilkas ahayniba wuursi ku dhaafeen markay gabax yidhaahdaan dad yar baa waxay raggaasi gudi jireen ama geli jireen dib u fiiriya daryeelka ay helaanna in badan buu ka yaraadaa midka ay u baahi qabaan xaajadii ku dhaaftaba mid baa lagu xasuustaaye xalay iyo wixii maanta dhacay waaba kala xaale xallad lagu kulmaba tii kalaa xarafka sii dheere intaad xaami tahay buu nafluhu kuu xabiib yahaye kol hadday xagluhu kaa dabcaan xiisahaa dhimay
badan oo wada door ahaa ayaa gabowgu geyeysiiyey inay kor tegi waayaan oo muruqyada ooga oo dabacay ku jir rabeen aqallada dhexdooda inay ku dana bogtaan dabadeedna dad kala daaye kuway dhaleeni jeclaysteen maalin aad u dhow inay xayun baaqin ku qaadaan. soomaalidii hore ragga caynkaa ku dambeeya qaarkoodii hibada u lahaa waxay marin jireen maansooyin calaacal u badan oo ay dana dhowr ah ka lahan jireen. maansooyinkaasi mar waxay u ahaayeen maaweelo iyo dhaymo nabar. waxay isku ilowsiinayeen dhibaatada markaa haysata, maxaa yeelay sida uu cilmi nafeedku qabo qofka dhiban waxa u roon waxa haysta intii uu qarsan lahaa inuu ka eed sheegto oo uu daboolka ka qaado. midda kale maansooyinkaasi waa naxariis raadis oo qofkaa gaboobay baa raba in cabashada aawadeed wax loogu qabto daryeelkiisana loo dhaga nuglaado. midda saddexaad waxay tahay qofkii oo doonaya inuu dhallinyarada hareerihiisa ka buuxda ka dhaadhiciyo inuu kol danab ahaa sideeda oo kale u xaragoon jiray, la tixgelin jiray, kobta uu fadhiyo aan si fudud lagu dhaafi jirin, haatanna tabarba yaan lagu eexsane uu mudan yahay in talo la weydiiyo. maxamed xaashi cabdi wuxuu ka mid ahaa odayadii soomaaliyeed ee sida weyn u cimriyey. cimriye wuxuu ahaa gabayaa ay tix qurihi naga soo gaadhay gabayadii malahayga badnaa ee isaga la iishay. tixdaa oo uu dhibaatooyinka gabowga ka tiriyey dad aan yarayn oo korka qaybsanna aan la kulmay waxay ahayd: laba laysku dhaabay iyo waxaan dheeg wiyila qaatay, amaan khayli dhoolaha madow gudub ku dhaaraamay, dhabarreera guureen miyaa laygu wada dhaafay, ushaan dhaabin mooyee hubkii ma iska wada dhiibay, ma ka dhaxay dhawaaq baxaya iyo dheelmataan gabana, dhuuniga isii yahay miyaan sida dhallaan ooyey, waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday, raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday, kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni. maxamed allaha u raxmadee wuxuu sheegtay itaaldaro iyo tabarxumo uu gabowgu u soo jiiday. meelisyadiisa wuxuu ku bilaabay tilmaan uu ka bixiyey dagaalyahankii uu jeer ahaa iyo siduu u xashaashi jiray kolkuu adduun ahaa ee ay calcartii dhallinyaranimo ku dhammayd. raggii uu awoowaha u ahaa iyo dumarkii uu qabayba sida tixda ka muuqata daryeelkiisa way ka cuslaadeen. ha yeeshee waxaan filayaa erayadaa kolkii la maqlayba inay arrintii isbeddeshay oo odayga loo jeestay. waa male uun keli ah ee waxba ma hubno, mala rag waa noolina rag horaaba yidhi. waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday, raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday, kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni. isna wuxuu ahaa gabayaa soomaaliyeed oo dhowr goor marxaladda gabowga wax ka tiriyey. salaan markay ciradii saabatay raggii ay isku da'aadda ahaayeen markay duul aakhira u bateen ee uu is arkay isagoo dhallinyaro ku dhex jira, markuu arkay isaga iyo wad inay kalama maarmaan yihiin, intaa oo idil markuu arkay ayuu u leexday dhanka cibaadaysiga iyo u tabaabushaysiga la kulanka eebbe. gabayadiisii mid ka mid ah oo waana ahaa wuuna ula jeeday cabdilaahi baashe nin la odhan jiray ayuu qayb ka mid ah kaga hadlay waxa uu gabowgu soo gaarsiiyey iyo waxa u eg. wuxuu yidhi: dhallinyaro cilmowgaa tashiga cara ka qaadaaya nin cibaaro badan lagu shubay oo caaqilaanahaye calli yahay, ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wad isaariye, marka madaxuu cawskay dhigyo cigay lixaadkii, cadcad waxaan lahaan jiray haddaan ciirayoo dhacaye, casho noolba waxaan fiiriyaa curufadaydiiye, raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye, cidla yuurur bay dilay sidii cawlka dibadeede, calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne, nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanne, qorraxdoo casar joogtaanahoo ciiri galabkiiye, cimrigaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye, sidaan cadadka biluhu u tirsaday waa cabsanayaaye.
maxaad cuni ha joogtee adduun caashaqaydiga eh kale oo aan filayo inaysan waayadaa ka fogeyn ayuu haweenay guursaday dabadeedna siday caadadu ahayd waxa isagoo yaradoona u yimid seedigii oo ahaa 20 jir ay hawa adduun kolba dhan u wado salaan isagoo ninkaa u boholo qodaya una dardaar warinaya ayuu gabiyey wuxuuna gabaygii ku daray calaacal xagga gabowga ah oo aad loo wariyo loona yaqaan gabaygii wada marin maynee waxaa ka mid ahaa min 20 buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari iqiin haatan lowlabaya nin ciradu lamaanaa dhigtoo laylyan baan ahay 62 baan kor maray waana la hubaaye lafta dhabar laxaadkay dabciyo laafyihii gacanta lubidaydu layl xalay maladin laadadiiyo taahe waa taalan leemada indhaa aragu liitaaye liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleed